بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan imid xarunta diiwaangelinta musharaxiinta ee xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed alxamdulillah waxaan nala guddoonsiiyey shahaadada diiwaangelinta processkii ama shaqadii loo baahnaa in la isku diiwaangeliyo dhammaan waa soo qabanay shahaadada waa la guddoonsiiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore guddiga diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya hawsha iyada aad baan ugu faraxsanahay shaqada wanaagsan ay noo qabteen intaa ka bacdi waxaan shahaadada musharaxnimadu waxay noo siinaysaa fursad inaan si sharci ah ugu tartanno xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaahay idankiisana waxaan rajaynaynaa guul baan rajaynaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal waxaan rajo ka qabnaa in ay noo codayn doonaan naguna aamini doonaan xilka madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya runtii in xilkan oo kale loo tartamaayo waa hawl aad u weyn waa waajib waa hawl u baahan in aad ogtahay inaad wax badan ku soo biirin karto masiirka ummadda Soomaaliyeed ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa guul saxaafaddana waa idin mahad celinaya